wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada oo ka qayb galay shir loogu hadlayay xuquuqda shaqaalaha iyo daryeelka bulshada oo lagu soo gabagabeeyay magaalada Kampala ee caasimadda dalka Uganda. shirkan oo ay soo qaban qaabisay xarunta ay ku bohooween wasaaradaha shaqada iyo arrimaha bulshada isla markaana ah shirkii 46aad oo maanta lagu soo gabagabeeyay magaalada Kampala ee caasimadda dalka Uganda. waxaana shirkan ka qayb galay 19 wadan oo ku hadla luqadda Ingiriiska. waxaana dawladda Soomaaliya shirkan u matalayay wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada ee dawladda federaalka Soomaaliya xildhibaan Sadiiq Xirsi Warfaa. ujeedada ugu weyn ee shirkan oo lagu hadlayay ayaa waxay ahayd xuquuqda shaqaalaha iyo tababaradooda, shaqo abuurka iyo la dagaalanka gaajada. wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada xildhibaan Sadiiq Warfaa ayaa warbaahinta u sheegay in tababaro iyo kobcin dhanka aqoonta ah loo balan qaaday Soomaaliya oo ay heli doonaan shaqaalaha dawladda Soomaaliya. walaadan kaaga waramo shirkan waa shirkii 46aad ee wadamada liirada Anglophone ARLAC oo liirada African Regional Labor Center. marka ARLAC waxa weeye waa wadamada English speaking country 19 wadan oo Soomaaliya ka mid tahay ayaa xubin ka ah. waxyaabaha ugu waaweyn oo shirkan waa shirkii 46aad oo dhacay weeye. Soomaaliya muddo dheer ayay ka maqnayd oo iska qayb gali jireen shirarka noocan oo kala ah. laakiin member ayaan ka nahay, xubin ayaan ka nahay, waliba xubin muhiim ah. marka shirkan waana lagu casuumay waxaana looga hadlayaa waxa weeye 4 waxyaabood ayaa ugu waaweyn oo looga hadlayo. 4 waxyaabood waxa ugu horeeya shaqada iyo sidii shaqo wax leedahay decent work, shaqooyin wanaagsan oo dadka loogu abuuri lahaa. waxa kale looga hadlayaa xuquuqda shaqaalaha. waxa kale looga hadlayaa wax leeyahay social protection oo ah dadka nugul oo mataqaana ay aad oo nolosha ugu hooseeya faqriga si loo dagaalami lahaa. mowduucyadaas ayaa looga hadlayaa wuxuuna ka dhacayaa magaalada Kampala. marka runtii shir aad u muhiim u ah waaye. ilaa iyo hadda 13 wasiir oo dalal kala duwan ayaa yimid iyo wadamada kalena qaar safaaradooda soo dirsadeen. annaga Soomaaliya si muuqda ayaan uga qayb galnay oo aniga wasiirka socda iyo wasaaradda xubin kale oo kamid ah. marka runtii ahmiyad gaar ah inuu leeyahay sababtoo tahay waxaan rabnaa inaan shaqaalaheena inaan ku tababarano. kaas ARLAC waa xarun aad uga caawisa xubnaha ku jira in shaqaalahooda oo ay tababar fiican qaataan si dalka ugu adeegaan. shirkan ayaa soconayay muddo 3 cisho ah ayadoo laga soo saaray warmurtiyeed lagu sheegay in la iska kaashan doono dhammaan wixii shirka loogu hadlayay. Cabdiwahaab Ibraahin Cabdi TV Koonfur Galbeed magaalada Kampala ee caasimadda dalka Uganda.